maanta ay taariikhdu tahay 22 Agost 2019 xafiiska xeelaanta guud ee Puntland wuxuu saxaafadda la wadaagayaa inuu la socodsiiyo in maxkamadda sare dowladda Puntland ay mudeysay garmaqalkii kiiskii Caaisha Eliyaas Aadan ayna xukumayaal ka ahaayeen Cabdifataax Cabdiraxmaan Warsame, Cabdishakuur Maxamed Dige, Cabdisalaam Cabdiraxmaan Warsame. kiiskaas oo cabasho u qaateen maxkamadda sare saddexda xukumane waxay mudeysay 17 bisha 8aad 2019 si kale haddaan yiraahdo Agost 17keeda 2019 sagaalka subaxnimo ee maxkamadda mudeysay in garmaqalkaas ay dhageysato oo ku dhageysato xarunta maxkamadda sare ee dowladda Puntland ee Garowe. intaas ayaan doonayay saxaafadda mudeyntaas iyada